halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. taariikhda markii ugu horeysay ayaa dalka Sweden waxaa suurtagal noqotay in ilmo lagu abuuro hooyo aan lahayn ilmo galeen iyada oo ilmo galeen looga soo saaray haweeney kale. dhacdadan waxay noqotay mid caalamka si weyn looga hadlayo waxaana arintani aanu ka wareysanay Maxamed Xaaji Xuseen Raaga oo ah wariye ku sugan dalka Sweden. Xuseen Barre Aadan ayaa ugu horreyn weydiiyay sida ay arintani suuragal u noqotay. xuseen runtii adigoo maadsan arrintan sidaad sheegtayba waa arrin markii ugu horeysay ka dhacday dunida caafimaadka dhakhaatiir badan in ay ku tilmaameen hal cusub waxaana fuliyey jaamacadda magaaladan aan ku noolahay ee Gothenburg ee loo yaqaano Göteborg University waxaana haweeney 36 jir oo wadankan u dhalatay ay cunug caafimaad qaba dhashay tiyo ay jirto inaanay lahayn ilmo galeen oo ilmo galeenka ay ilmahan ku dhashay uu yahay mid ay ku talaashay jaamacadda magaaladan Gothenburg ee Göteborg University waxaana ku dhashay isbitaalka loo yaqaano Sahlgrenska Universitet Sjukhus waana dabcan arrin cajiib ah walow la sheegay in cunugu markii uu dhalanayay uu ahaa dhicis oo ku dhawaad ilaa 2 kilogram uu ahaa oo lagu dhaliyay habka loo yaqaano cesarean section oo ah in qalin lagu soo saaro carruurta. marka haddii aad faahfaahin naga siisid sideeba ku dhacday in haweeneydan oo ilaahay marka hore aanu siin ilmo galeenka ay u yeelatay uurkan oo ay ku dhashay ilmahan oo markii ugu horeysay taariikhdan? horta marka hore Xuseen waxa la yiri dabcan ilmahan noocan ku dhashay marka hore waxay ahaan jirtay in uun lagu dhaliyo waxa loo yaqaano surrogacy-ga ama gacan ku rimiska in ay haweenku noqdaan ilmo galeen aana waxaa leeyahay waxaa keeni jirtay awal dhibaatooyinka ama kansarka ama dhibaatooyin la xiriira dhinaca in uu qofku ku dhasho dhalan roogan dhinaca unugyada laakiin horta arrintan waxay arrin soo martay xanaan dhir badan markii ugu horeysay labadan lamaane ee ilmahan iska dhalay oo u dhashay wadanka Sweden ayaa waxaa la marsiiyay waxa loo yaqaano IVF oo ah waxa loo yaqaano vitro fertilization oo ah xanaan in carruurta marka ugu horeysa sheekada laga bilaabo in ugxanta iyo shahwada la isku bacrimiyo iyadoo aanu la adeegsanaynin qofkii balse banaanka lagu sameynayo xanaanka waxaana sidaa lagu soo saaray ilaa 11 uur ku jir ama unugyada loo yaqaano embryos kadibna waa la fariisiyay oo waa la qaboojiyay dhakhaatiirta University of Gothenburg ayaa kadib waxa ay sameeyeen in min ay ka soo qaadaan haweeney ku deeqday oo 16 jir oo haweeneydan saaxiib la ahayd ay waxay ka soo qaadeen minki ama ilmo galeenki waxaana ku talaaleen gabadhan waxa la sheegay kadib tilaabada xigta inay ahayd in la isticmaalo dawo la isku ogoleysiyo labadan xubnood maadaama xubintan laga soo qaaday haweeneydan iyo midan lagu talaalay aanay islahayn oo kadibna jirku uu dabcan sameynayo waxa loo yaqaano isdifaac ama waxa loo yaqaano autoimmune disorder oo dhibaatada si loo hortago loo baahday in daawo la isticmaalo kadibna sanad kadib waxaa dhacday in la is ogoleysiyo ama la isku daro ama la isku bacrimiyo unugyadii uu ku jirka ahaa ee horey loo sameeyay midkood ayaa waxaa lagu talaalay ilmo galeenkii kadibna ilmihii ayaa sidaa ku bilaabmay qorshe uu socday balse 32 toddobaad kadib ayay haweeneydii waxaa qasab noqotay in ilmihii lagu qalo halkii caadiyan ay ahayd in 40 ilaa 42 toddobaad ku dhasho waxaana sababtu ay noqotay haweeneyda oo ay ku soo baxday jirada ama xaaladda loo yaqaano pre-eclampsia oo ah in dabcan jirku uu soo saaro borotiino badan oo isdiidan sidoo kale kaadida borotiin badan laga helo dhiiguna uu aad sare ugu kaco balse cunuga ayaa waxaa la sheegayaa dhashay inuu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay sida uu aabihiis laftiisu sheegayna uu yahay inuu ku dhashay safar dheer balse cajiib ah oo aan ka duwanayn carruurta kale. waa tahay dhakhaatiirtii arrintan gacanta ku haysay maxay faahfaahin ka bixiyeen? waxaa ka qayb galay dhakhaatiir aad u fara badan dhakhtarka lagu magacaabo Professor Mattis Brännström ayaa waxa uu sheegay arrintan inay tahay mid farxad leh isla markaana ah mid fursad siinaysa dad badan oo u baahan carruur balse aan lahayn ilmo galeenka
taasoo keentay in lagu talaali karo walow in xubin lagu talaalo qofka bini'aadamka aanay wax cusub ahayn waxaa wax cusub ah in minka la talaalo oo qof kale minkiisa qof kale lagu talaalo weliba markan haweeneydan ugxansidaheedu wuu shaqaynayay laakiin waxa aan shaqaynaynin waa ilmagaleenkeeda marka waxa ilmagaleenka laga soo qaaday haweeneydan 61 jirka ah oo 7 sano ka hor ay caadadu ka joogsato ama gashay wax loo yaqaano menopause sidoo kale haweeney lagu magacaabo Lisa Johansson oo iyadana dhakhtarad dhinaca gynecology ah ayaa waxay sheegtay in ay arrintan ay rajo siinayso haween badan oo aan marna ku riyoonaynin inay carruur dhali doonaan marka halka sidoo kale dhakhtar la yiraahdo Alan Pacey oo gudoomiyaha jamciyadda lagu magacaabo British Fertility Society uu sheegay in arrintan ay tahay mid ka caaminaysa dad badan oo dhibaato ka haysatay ilmo la'aanta wuxuuna sheegay in arrintan ay tahay mid lagu soo celcelin karo la isku halayn karo isla markaana ammaan ah iyadoo la adeegsanayo hanaanka loo yaqaano IVF laakiin dhibaatada taagan waxay tahay tusaale ahaan hadda haweeneydan ku dhashay ilmo galeenkan lagu talaalay waxay u baahan tahay mar kasta in lagu duro dawo is-ogolaysiinaysa labada xubnood waayo xubintani jirkeeda waxay ku tahay xubin qalaad sidaas darteed antibodieska jirkeedu wuxuu soo saaraya proteins la dagaalama waxaa dhacaya markaas waxa loo yaqaan autoimmune disorder oo qofkii dabcan dhibaato caafimaad ayaa lasoo darsaysa marka waa in dawadaas lagu wadaa haddii ay sii haysanayso ilmagaleenkan lagu talaalay haweeneyda kale ay iska leedahay haddii kale oo aanay u baahnayna maadaama hadda ay hal cunug dhashay waa in laga saara ayaa laleeyahay waxa uu ahaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah wariye ku sugan dalka Sweden oo u waramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga